labo geeridaaday jecel yihiin doqon sokeeye iyo diric shisheeye haddii aan milicsano meelaha uu cilmi ahaan ka dhashay casharka aan kaga hadlayno murtida maanta waxaa ka mid ah masayrka iyo xaasidnimada ee ah laba dabeecadood oo aad isku mid moodid dadka dareenkiisana ku milma aan ku hormarro masayrko meela ka iftiiminne waxa uu ka dhashaa dadka heerka yaraannimada ee aad arkaysid in canugu ka caroodo wixii mid kale loo dhaafiyo wixii la fiicnaadana ay naftiisu u muhato heerka weynaantana waxaa kala masayra dadka curiya fikradaha kuwa cilmiga iyo aqoonta abwaannimada wax ka alifa kuwa wax sawira kuwa farsamooyinka jaadjaadeeya iyo dhammaan kuwii wixii ay sameeyaan muuqanayaan iimana loo yeeli karo intaasoo mid waliba jeclaysto inay tiisu u meel martee lagu ammaano xaasidnimaduna waa sida masayrka oo kale ka samug weyn xagga xumaanta oo waxaaba laga yaabaa inay noqoto dabeecad lagu dhashay xaasidkuna cidna lama jecla khayrka iyo samaanta oo waa ka murugoodaa libintii waalki maamulayna ugama marag furo ee waa ka murmaa isaguse waaba cadowgaaso waa wax ilaahay laga magan gale waxay nacasnimo meel dhigatay kii masayr macno la'aaneed xaasidnimo ku abuuro cilmigaas aynu carabka soo marinayna kama maqnayn abwaannimada Soomaalida iyo dhaqankeedii miyiga oo waxa ay kaga mahmaahday hawraar murtiyeedan tiri labo geeridaaday jecel yihiin doqon sokeeye iyo diric shisheeye laqbuhuna waxa uu yahay nacaska kula dhashay iyo ninkarmeedka ka dhashay shisheeye ay dakano idin dhex taal labaduba dhimashadaaday jecel yihiin mahmaahduna waxa ay ku baxday meesheed iyo miyiga Soomaalida ee hawlaha yaal lagu muquuniyo raganimiyo geesinimo doqonnimaduna ay ninkeeda mahadho raacsiiso jiciir la gibil madoobaysiiso waxa badnayd inuu jiray ninkarmeed degmadiisa ku daafaca dood hadal iyo dagaal adin oo hadday xaajo isdabarto lala doonto ur u dilaaciya markaasa doqonta dadkiisa ahina colaadisaayo intay dibinta u qaninto istiraahda haddaad sidiisa ahaan lahayd magac baad yeelan lahayd haddii uu dhiman lahaana meeshiisaad dhaxli lahayd waxaa isna neceb ninkarmeedkaas ninkarmeedkii hormuud u ah degmo kale ay colaadi dhex taal oo ku walaaca haddii hebel ka dhiman lahaa ogoobay talada ka lumi lahaydoo waad ka adkaan lahaydeene murtida dulucdeeduna waxay tahay qofkii u daacad ah dadkiise danahooda u xaydani inuu u adkaysto dhibaatooyinka kala soo darsaya mahmaahdani waxay dul habsatay aqoon darradiisana dabool qaadaysaa ruuxii u dudo eed aanay lahayn u doondoona madaxdii u duubanoo hurdo u ladi weyday daafaca dalkoodiyo danaha bulshada ay xilka u sidaan hadalkaas dabuubtiisuna waxay u dhacaysaa dadweynaha Soomaaliyeed ee ay la soo gudboonaatay xaalad adagi cadow jiristoodiyo gobonnimadooda duulaan ku ahna la hardamaya murtiduna waa waana guud iyo tusaalaheeda waa in laga durko dhammaan wixii keenaya xaasidnimo masayr meelaawe dulmi diradire dabin isiqoolid iyo dacaayad aan raad lahayn waa wax ilaahay caradi ku timaado labo geeridaaday jecel yihiin doqon sokeeye iyo diric shisheeye